dagaalkii ugu cuslaa ayaa cabsida ugu xoogan ay tahay in uu ka qarxo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Doorasho ayuu mar kale qabanqaabinaya madaxweyne Laftagareen. Imaanshihiisii Koonfur Galbeedna dhiig badan ayaa daatay, shacabka deegaankana ilaa iyo hadda qaarkood waa ay ka soo kaban la'yihiin. Wasiir ayaa hadda laga dhigay, laakiin xilligaas waxaa loo soo xiray nin musharax ahaa oo isagu la tartamayay. Wararkii ugu dambeeyay doorashooyinkan sidoo kale buurha kaba maxaa ka socda isla qansax dheere ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. howlgallo iyo qorshayaal dagaal oo ka bilowday banaanka magaalada Baydhabo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Saaxiibayaal soo dhawaada, haddii ay tahay markaa kugu horeysay ee aadna soo booqataan, waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto, saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. Muqdisho kulamo kala duwan ayaa ka dhacay, kuwaas oo looga arrinsanayay sida loo wajahayo madaxweyne Laftagareen oo xilligan dood adag ay ka taagan tahay qabashada doorasho la sheegay in uu ka qabanqaabinayo gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaano kale oo dhowr ah oo ka tirsan isla maamulkaasi Koonfur Galbeed. Laakiin doorashadan waa doorasho noocee ah? Wararka iyo xogaha kala duwan ee aan helnay ayaa xaqiijinaya in doorashadan ay tahay doorasho dadban oo madaxweyne Laftagareen uu doonayo in uu ka qabto gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in xilligan la bilaabay abaabulka iyo sidoo kale qabanqaabada munaasabada ku dhawaaqista guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweyne Laftagareen iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa la tilmaamay inay kala dhaqaaqeen, taas oo keentay in madaxweyne Laftagareen uu dareemo culays siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinaca Villa Soomaaliya. Wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in magaalada Baydhabo saacadihii la soo dhaafay kulan gaar ah uu ku dhexmaray siyaasiyiinta muxaafadka iyo saraakiil ciidan, kuwaas oo la tilmaamay inay ka arrinsadeen amaba isla soo hadal qaadeen xaaladda guud ee ammaanka Baydhabo sidii gacan bir ah loogu qaban lahaa inta ay socdaan doorashooyinkan. waxaa sidoo kale la wariyay in xaaladda iyada oo sidaasi ay tahay haddana musharaxa koowaad uu noqdo madaxweyne Laftagareen, oo ay wararku sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay uu khadka telefoonka kula hadlay siyaasiyiinta qaar ee muxaafadka ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. xogaha kale ee aynu helayno ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay isla saraakiil ciidan iyo ciidankii ugu badnaa duleedka Baydhabo la geeyey, kuwaas oo la tilmaamay inay ka qayb qaadanayaan sugidda ammaanka iyo sidoo kale isku xirka bulshada, iyadoo wax walba oo aan raali ka ahayn madaxweyne Laftagareenna laga hortegayo. taas oo keentay in xilligan jabi kala xirnaansho ah ay ku soo biirto magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. madaxweyne Laftagareen ayaa kulamo kala duwan la tilmaamay in uu wadanka Turkiga kula qaatay rag isagu si gaar ah u garab taagan oo dawladii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ka tirsan, kuwaas oo dhammaantoodba u sheegay inuu qabto amaba uu aado doorasho dadban si dhabarjab xoogan loo dareensiiyo Villa Soomaaliya. marka laga soo tago kulamadaasna, madaxweyne Laftagareen inta uusan safarkiisa gelin waxaa la tilmaamay in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka diyaarad gaar ah uu ka qaatay, laakiin inta uusan bixin garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee Muqdisho daqiiqado kooban uu ku hakaday, taas oo xubno ka agdhow Villa Soomaaliya uu kula kulmay. ugu dambeynse la tilmaamay wadahadalkii dhexmaray inay isku afahmi waayeen, kadibna uu halkaasi kasii dhoofay wadanka Turkiga ayuu tegey. waxaana la sheegay in halkaas kulamo kala duwan uu la qaatay saaxiibadiisii hore ee dawladii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaana sidoo kale la tilmaamay in dhaqaale dhan doorashooyinka inta uu ku gelayo halkaasi uu ka raadiyey, laakiin xogo kala duwan kale ayaana soo baxaya oo ku aadan in go'aan adag uu ka soo qaatay dhinaca wadankaasi Turkiga, oo siyaasiyiinta muxaafadka ah ee weliba isagu taageersan ay kula soo hadleen. sidoo kalena qabashada doorashada Koonfur Galbeed ay u sheegeen inay muhiim u tahay dardargelinta xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka. madaxweyne Laftagareen oo in badan oo ka mid ah garab siyaasadeed oo aad u xoogan u ahaa madaxweynaha xilligan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda u muuqda inay isdaayeen kadib markii khilaaf adag uu soo kala dhexgalay oo siyaasadeed madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda Laftagareen, taas oo ku aadan in Laftagareen uu tuhun weyn ka qabo xukuumadda, taasi oo ah in khalalaasaha ka socda Koonfur Galbeed ay gadaal ka riixayso. waxaa la tilmaamay dastuurkii dhowaan la meelmariyey in madaxweyne Laftagareen uu u soo hambaliyeen waayey dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo guud ahaanba dadka taageersan meelmarinta dastuurkan, isaga oo weliba garab u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
maamulada qaarkood ayaa durba hambalyo soo diray laakiin waxay u muuqataa in lafta gareen uu qaatay go'aan adag oo ah in dhexdhexaadin ama door dhexdhexaadnimo uu qaato kaasi oo waa mucaaradka iyo muxaafadka la isugu keenayo waxaa muuqata in madalla kala duwan oo ay ku midaysnaayeen madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan ay kala dhantaalmeen sida golaha wadatashiga qaranka ka tirsanaanshaha xisbi weyn oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isugu keenay madaxda qaar ee maamul goboleedyada oo magaciisa la yidhaahdo JSB waxaa hadda la sheegayaa in lafta gareen uu qabanqaabinayo abaabulka iyo soo xulista guddi xildhibaano ah amaba guddi doorasho oo la doonayo inay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya xogaha kale ee aynu helayno ayaa sheegaya in baydhabo ay ka socdaan dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan oo dhammaanba saraakiisha ciidanka iyo kuwa ku sugan halkaasiba loogu wargeliyey inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka ka hortaga wax kasta oo lidi ku ah ammaanka doorashada iyadoo musharaxiinta kala duwan ee madaxweyne lafta gareen ka aragtida duwanna la tilmaamay in laga yaabo inaysan gaarin baydhabo laakiin kuwa isaga malxiis u ah uu geen doono gudaha magaaladaasi baydhabo sidii ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland isla baydhabo waxaa la tilmaamay in rag markaasi si weyn u muxaafadsan madaxweyne lafta gareen ay ku sugan yihiin kuwaas oo qaarkood laga yaabo in kursigaasi koonfur galbeed ay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan laakiin natiijo ahaan marka la fiiriyo uu kaga guuleysan karo madaxweyne lafta gareen xukuumadda Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa culays aad u xoogan gaar ahaan villa Soomaaliya waxaana la warinayaa in mid ka mid ah madaxweynayaashii sida weyn markaasi u garab taagnaa tan iyo 2022 oo ah imaanshihii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu galbihiisa baneeyay madaxweyne lafta gareen ayaana loo arkaa haddii saaxadda siyaasadeed ee villa Soomaaliya uu ka tago inay dhabarjab xoogan ku noqon doonto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dastuurkii dhowaan labada gole ee baarlamaanka ay u meelmariyeen aadamadowdana uu ku dhawaaqay muddo kororsi hal sano ah taas oo khatar weyn gelin karta guud ahaanba sii joogitaanka madaxda maamul goboleedyada saddexda ah ee Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya Koonfur Galbeed haddu dhinac ayay u go'day waxaana muuqata inaysan dhig u dhigin arinta la xiriirta villa Soomaaliya ee ah in muddo sanad ah ay qaataan oo ay ku sii joogaan si sharci darro ah laakiin waxa arintaasi lagu sheegay inay noqon doonto in madaxda maamul goboleedyada qaarkood loo heli karo rag la tartama oo meesha looga saaro haddii amarka villa Soomaaliya ama go'aanka villa Soomaaliya ay soo saartay ay qaataan waxaa muddo hal sano ah haddana la filayaa inay sii joogaan madaxda maamul goboleedyada ama xitaa khatar kale oo ammaanka ah ay dareemaan sida koonfur galbeed hadda ka taagan oo magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Qansax Dheere iyo Buur Hakaba ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa oo mucaarad ku ah madaxweyne lafta gareen inkastoo aanan la helin warar rasmi ah oo sheegaya xilliga la jadwaleynayo soo xulista guddiga doorashada iyo xildhibaanada iyo guud ahaanba tan madaxweynaha haddana shaqo adag ayaana hortaala madaxweyne lafta gareen oo ah in go'aanka uu qaatay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sanadkii aynu ka soo talaabnay 2024 ah in uu qaato oo waliba soo xulo guddi doorasho soo xulo xildhibaano isla markaana ugu dambeyn la isugu yimaado miiska doorashada madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed madaxweyne lafta gareen hadda cadaadis dhinaca gudaha ah oo ammaanka ah ayuu wajahayaa dhinaca siyaasadda inkastoo raggii in badan oo kamid ah uu ka soo horjeeday ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka haddana ammaanka guud ayaa u muuqda mid lagu kala dhantaalay saraakiishii isagu xeendabka u ahaa ee waliba uu dugaashanayay taas oo guud ahaanba ku kala biiray ciidamada kala jooga Qansax Dheere iyo sidoo kale Buur Hakaba labadaasi degmo ayaa noqday laba degmo oo hadda si weyn la isku abaabulayo oo dhammaanba ciidamada mucaaradka ee la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed ay wada joogaan rag saraakiil ah ayaa saacadihii la soo dhaafay ku biiray oo kulamo kala duwan oo halkaasi ka dhacayna go'aan adag la isla qaatay iyadoona guud ahaanba shuruudda hadda lagu xiray ciidamadaas ay yihiin kaliya inay isdifaacaan deegaanadaas gacanta ku hayaan degmooyin kalena ay ku soo socdaan haddii ay arintaasi dhacdana madaxweyne lafta gareen uu laga yaabo in uu qaato go'aan degdeg ah oo ah in doorasho dadban oo waliba si adag ama si degdeg ah uga dhacda magaalada Baydhabo uu qaadan doono haddaba maxaa ka jira in wada hadal uu dhexmaray madaxweyne lafta gareen iyo villa Soomaaliya intii uu ku sugnaa wadanka Turkiga iyo intii uu ku sugnaa Baydhabo oo uusan ka soo bixinba kadib markii ay yimaadeen abaabulkan ciidan ee Qansax Dheere iyo Buur Hakaba ka kala dhacay waxaa la tilmaamay in villa Soomaaliya ay la xiriirtay madaxweyne lafta gareen oo ah in xaaladda uu dejiyo oo uusan bilaabin dagaal ka dhana labadaasi degmo ama Buur Hakaba oo xilligaas ahayd degmada kaliya ee kaligeeda taagneed laakiin uu shuruud ku xiray taasi oo ah
in haddii uu doonayo wada shaqaynta madaxweyne Laftagareen villa Soomaaliya ay rabto in xil ka qaadis ay ku sameyso wasiirada qaar ee uu sida adag uga soo horjeedo madaxweyne Laftagareen waana sida wasiir Xasan Eelay oo kol hore madaxweyne Laftagareen siyaasad ahaan ay isku hayeen haddana amni la isla gaaray ugu dambeynna dagaal ka dhacay Baydhabo gurigiisii loogu biliqaystay wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda dhexe ee Soomaaliya Xasan Eelay taas oo keentay kala fogaanshaha madaxweyne Laftagareen iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan villa Soomaaliya oo tilmaamtay in wasiirku laga yaabo inuu bedelo kursiga madaxweyne Laftagareen haddii awood siyaasadeed iyo mid amni ay markaasi ka dhaxdhalato gudaha koonfur galbeed oo si gaar ah ay u xakameynayso villa Soomaaliya laakiin waxay u muuqataa in xaaladda haddu guud ahaanba ay soo wada xirmayaan albaabadii wada hadallada iyo ka tirsanaanshaha labada madal ee golaha wada tashiga qaranka iyo sidoo kale xisbiga JSP ee madaxweyne Laftagareen iyo villa Soomaaliya ay ku midoobeen inay ku kala tagsan yihiin oo haddu ciidamadii Itoobiyaanka ahaa qaarkood waxa lagu wargeliyay inay ammaankooda sugtaan sidoo kalena ay ka qayb qaataan wax kasta oo markaasi ammaanka lagu xaqiijinayo madaxweyne Laftagareen danaha uu watana Itoobiya aysan ka hor imaan karin si gaar ah ciidamada Itoobiyaanka iyo saraakiisha halkaas ku sugan haddii aysan dhicin kala qoqob amni iyo sidoo kale mid siyaasadeed iyo xiriir villa Soomaaliya ka taga oo dhinaca ciidamadaas Itoobiyaanka u taga sidii dhacday xilligii dawladda Farmaajo oo dawladda iyo sidoo kale ciidamada Itoobiyaanka ay wada shaqeynayeen oo Sheekh Mukhtaar Ruuwa Cali Abu Mansuur lagu soo qabtay si kursiga koonfur galbeed uu ugu guuleysto madaxweyne Laftagareen falanqeynadaasi oo idil ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal arrimaha la xiriira koonfur galbeed idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi hela haddii aad ila dhamaadkana la soo gaartay nagu soo biir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaaga si aan halkan ugu helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kalena muuqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga oo meel dheer la gaarsiiya